waxaa galabta si habsami looga furmay Koob sanadla garoonka weyn ee Ismaaciil Stadium ee ku yaala magaalada Laascanood. Koob kale loogu magac daray isdhexgalka dhalinyarada isboortiga ee gobolka Sool gaar ahaan degmada Laascanood. Koobkan ay soo qabanqaabiyeen qaybo kamid ah hogaamiyaasha kooxaha ayaa waxa uu ku kala cugtamay 6 kabtan oo ka kala socda 6 kooxood oo Siro ah. waxaana ugu horeeyay ka hadlay guddiga qabanqaabada koobka iyo dhalinyarada ka soo qayb gashay koobkan dhamaatoodna soo dhaweeyay kala warbixiyay muhiimadda uu leeyahay koobka oo kale in loo qabto dhalinyarada gobolka Sool. galabta waxaan ku sugannahay garoonka Ismaaciil Mire ee Tayga. galabta waxaan uga furmay garoonka Ismaaciil Mire koob ay ku tartamayaan 6 kabtan oo laga soo xulay kooxaha sareeyada ee gobolka Sool. ciyaartoy walba waxay ku kooban yihiin 22 ciyaartoy 6 kabtan koox kasta kabtan baa hogaaminaya. waxaa lagu talagalay koobkan Federation Cup waa koob aan ahayn kooxii gobolka ee rasmiga ah laakiin koob lagu talagalay isdhexgal dhalinyarada gobolka Sool dhamaantood loo baahan yahay inuu ka qayb noqdaan laakiin ma aha koobka kooxaha heerka koowaad waa inoo dambeeyay. waa koob sanad walba garoonka Ismaaciil Mire lagu qabto iyadoo ujeedku ugu weyn uu yahay in la xoojiyo mar walba isdhexgalka dhalinyarada gobolka Sool. dhalinyaro nin walba uu koox gaar ah ka yimid marka la isu keeno taasi waxay keenaysaa soo dhawaansho badan iyo xushmad badan dhalinyarada dhexdooda ka dhalata. labada kooxood galabta koobka furaya waa kooxda Heegan iyo kooxda Halgan. assalaamu calaykum magacaygu waa Maxamed Cabdi Saaqali walo oo kooxdan kabtan u ah sida Cabdi sheegayba koob 6 kabtan ay ciyaarayaan weeye iyadoo la soo xulay Isboortiga dhalinyarada gobolka Sool ka wada ciyaarto dhan koox walba wax laga soo qaatay marka aad baan u soo dhaweynayaa waa isdhexgal iyo horumar. koobkani ma aha koob ujeedada laga leeyahay koob dan gaar ah laga leeyahayna ma aha muhiimaddu waxa weeye gobolkii koobkiisa aad iyo aad bay tayadoodu u hooseysaa. dadka haddaan wax loo qabanayn dhalinyaradu inay isdirto oo ay isdhex gasho iyadu wax qabsato baa wanaagsan. halkan aniga waxaan baaq iyo fariin uga dirayaa dadku haddaan wax loo qabanayn ha loo idmado dadku inay wax qabsadaan baan anigu halkan ka cadeynayaa. halkan aan ku sugannahay waa garoonka Ismaaciil Mire Stadium Tayga. waxaan u joognaa furitaanka koobka Federation Cup isdhexgalka dhalinyarada degmada Laascanood. runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo. marka labaadna waxa ma hadlay in dhalinyartan abaabushay koobkan isdhexgalka bulshada waxaan halkan aad iyo aad ugu hambalyeynaya dhalinyartan isku tashatay ee ka talisa aayaha dhalinyarta gobolka Sool. koobkan oo ah koob ay soo abaabuleen dhalinyarta xaafadanu maadaama aanu ka firsan weyna markaan isla eegnay koobkan oo sanadla oo sanad dheeli ay qabsato xaafadda Afrika. waa koob iski waxaan sheegay dhalinyarada xaafadda soo abaabushay ruuxantii kale waxaa muuqata habacsanaan weyn baa muuqata xagga wasaaradda ciyaaraha iyo sportska. Qadar Torbi Kalsal TV Laascanood.